halkani waa Horn Peace Prize Daily News. waxaa idin la socodsiin doona Mukhtaar Bashiir Aadan. waxaan idin soo gudbin doonaa podcast episode oo bonus ah. si toos ah ayaad uga dheehan kartaa barta aan ku leenahay YouTube-ka, Twitter-ka, Instagram-ka, linkiga and elsewhere. si toos ah daba la soco kula socodsiin doonaa wad maasan tahay. bismillaahi raxmaani raxiim. shirweynaha koowaad ee nabadgelyada gobolada Geeska Afrika iyo dalka China ayaa ka furmay xarunta dalka ee Addis Ababa. kulankan oo muddo 2 maalmood ka socon doona magaalada dalka Itoobiya Addis Ababa ayaa lagu gorfayn doonaa iskaashiga nabadgelyada, xasiloonida, horumarinta aasaasiga ah iyo arrimaha maamul wanaagga. sidoo kale la taliyaha amniga ee qaranka ee wasaarada Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya Danjire Ridwaan Xuseen ayaa ka mahad celiyay dadaalada taageeraha ee Shiinuhu ka wadaan xasilinta iyo nabadeynta wadamada Geeska Afrika dhibaatooyinka amni darro ku gadaaman yihiin. Madaxweyne Ridwaan ayaa tilmaamay in loo baahan yahay in si ka go'naansho leh looga wada shaqeeyo xasiloonida wadamada mandaqada Geeska Afrika. sidoo kale Danjire Ridwaan Xuseen ayaa sheegay in wadamada Geeska Afrika ay ku dhaqan yihiin in ka badan 300 oo milyan oo qof. sanadihii ugu dambeeyayna ay la daala dhacayeen dhibaatooyin iskugu jiray isku dhacyo, khilaafaad sababay dhimasho, barakac, qaxooti iyo masiibooyin dabiici ah. la taliyaha amniga qaranka ee wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Itoobiya Madaxweyne Ridwaan ayaa sheegay in shacabka Geeska Afrika looga saaro saboolnimada in loo baahan yahay in laga shaqeeyo sidii loo dejin lahaa siyaasado dhaqaale oo adag oo ku saleysan rabitaanka shacabka wadamada Geeska Afrika. isla markaana dalka hore loo baahan yahay in la dhiso xiriirka iyo iskaashiga u dhaxeeya dalka China iyo gobolada Geeska Afrika. dhankiisa ergeyga gaarka ah ee China u qaabilsan Geeska Afrika Mudane Shou Bengi ayaa cadeeyay in howlo muhiim ah ay ka wadaan taageerada la xiriira dhanka caabuqa COVID-19 iyo sidoo kale xalinta isku dhacyada qaxootiga ee Geeska Afrika. isla markaana Shiinuhu ay sii xoojin doonaan taageerada iyo iskaashiga amni ee horumarinta Geeska Afrika. ergeyga gaarka ah ee China u qaabilsan qaaradda Geeska Afrika Mudane Shou Bengi ayaa tilmaamay in China ay ka wadaan wadamada Geeska Afrika horumar aad u ballaaran, sidoo kalena ka taageeri doonaan dhinacyada nabadgelyada, damaanadda cuntada, daraasadda iskaashiga aaladaha casriga ah iyo horumarinta aasaasiga shaqo abuurka, horumarinta cududa shaqaalaha, la dagaalanka argagixisada iyo isku xidhka bulshada. kulankan oo ah kii koobaad nabadgelyada iyo horumarinta gobolada Geeska Afrika iyo dalka China Afrika ayaa waxaa ka qayb galay ergooyin ka kala socday wadamada Djibouti, Kenya, Soomaaliya, Uganda, Koonfur Suudaan iyo Itoobiya. ugu dambeyn kulankan oo socon doona muddo 2 maalmood ah ayaa lagu wadaa inay ka soo baxaan go'aano dhaxalgal ah oo horumar maamul suuban u horseedi doona gobolada Geeska Afrika. waad mahadsantihiin. Mukhtaar Bashiir Aadan, Horn Peace Prize Daily News.